waxaa lagama maarmaan ah inaan raajo saaro. Assalaamu calaykum dhammaan muslimiinta ku xiran mubaarak khayraad. Qisada gabadhii dhashay mucjisada Part 2. Walaal subscribe saar gambalelkana furo. Muuqaalkana like saar siina share garay. Waxay tiri waxaan ku dhaartay Allihii samada taagay tiir la'aan wa rabbul kacbati rabbul arshil cadiim. Inaana samayn dembigan aadka u xun. Qalbigii aabaha ayaa xasilay wax yar. Wuxuuna ku yiri waxaan u tagi doonaa dhakhtar labaad. Wuxuuna u tagay dhakhtar kale wuxuuna ku yiri gabadhaydu waxay la dhibtoonaysaa xanuun xun oo uga dhacay caloosha hoosteeda. Waxaanan u geeyay dhakhtar wuxuuna igu yiri gabadhaadu waa xaamilo mana aysan guursan. Dhakhtarkii ayaa baaray gabadhii wuxuuna yiri waxaa lagama maarmaan ah inaan raajo saaro. Aabihiina wuxuu yeelay taladii dhakhtarka. Markuu baaray ayuu dhakhtarkii u sheegay jawaab argagax leh. Wuxuuna u raaciyay hamurugoon aabahayow. Inantaadu waxay la dhibtoonaysaa cudur xun oo uga dhacay caloosha. Aabihi ayaa aad u murugooday. Oohintiisana wuu xakamay waayay. Wuxuu u yeeray gabadhiisa wuxuuna ku yiri cafi gabadhaydii. Waan ku dulmiyay waxaan kugu dulmiyay inaad uur leedahay. Gabadhii ayaa tiri aabahayow sideenan ku cafinin adigoo aabahay ah. Wallaahi haddii aad sameeydo arrintan wax ka badan waxaan ahaanayaa markasta mid ku cafida. Adiga waxaa tahay aabahay anna waxaan ahay gabadhaada waxaad doontana igu samee. Ninka ayaa ahaa mid iska ooyaya dhakhtarka ayaana ku lahaa hamurugoon aabow. Cudurkan waan daaweyn doonaa Ilaahay hadduu idmo. Waxaana bilaabaynaa tilaabooyinkii daaweynta oo koowaad. Ilaahay khayr ka filo. Ninka ayaa watay gabadhiisa wuxuuna la aaday gurigii. Wuxuuna ku yiri hamurugoon gabadhaydii kan waa qadarta Ilaahay iyo xukunka Ilaahay. Ninkii ayaa tagay si uu u tukado oo Ilaahay u baryo Azza wa Jalla. Oo ugu ooyo sidaas ayay gabadhuna samaynaysay. Waxay ahayd inay Ilaahay barido habeenkii iyo maalintiiba. Waxay qaadanaysay daawadeeda iyadoo Ilaahay baryaysa muddo 6 bilood ah. Aabaheedna Ilaahay ayuu u tadarrucayay Azza wa Jalla. Gabadhii iyo aabaheed ayaa tageen si ay u soo qaataan daawada intii uga hartay. Laakiin dhakhtarka ayaa ku wareeray wixii dhacay. Wuxuuna yiri tani waa mucjiso. Tani waa mucjise maxaad samayseen? Waxayna yiraahdeen ma aanan samayn wax aan ahayn baryaha Ilaahay Azza wa Jalla. Dhakhtarkii ayaa yiri tani waa mucjiso weyn. Gabadhaadu way ka caafimaaday dhammaan cudurkii xumaa. Way yar yihiin dadka ka caafimaaday cudurkan xilliyadan dambe. Iyo waayahan dhammaantood way farxeen. Ninkii iyo gabadhiisa ayaa tageen ayagoo aan farxadooda la soo koobi karin. Oo Ilaahay u mahad celinay. Wan ayuuna u gowracay Ilaahay dartiis wuxuuna u qaybiyay dadka fuqarada. Asagoo dhahaya Ilaahay ayaa mahad iska leh iiga caafiyay gabadhayda cudurkan xun. Cafi gabadhaydii. Waxayna tiri gabadhii wallaahi aabow haddii aad sameeydo waxaan wax ka badan. Waxaan ahaanayaa mid baari ku ah ilaa aan ka dhimanayo. Ninkii ayaa ooyay asagoo Ilaahay u mahad celinaya. Ha ka cabsanin shay kasta oo ku argagax galiya. Allah la jirkiisa wuu kula jirayay. Wabillahi tawfiiq halkaas ayay noogu dhamaatay qisadii. Ku salli nabiga sallallahu alayhi wasallam. Kala soco halkan qisooyin xiiso iyo waan qaadasho leh. Haddii aad ilaa dhamaadkana wehelisay waad mahadsantahay. Ha hilmaamin inaad subscribe saarto channelka. Waa noo dhiirigelin. Gambalelkana furo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada isla markaan soo gelino.